runtii annaga waxay noo tahay waqtigan hadda aan ku jirno iyo guushaad soo gaarteen dhalinyaro waa guul taariikhi ah oo waayahan Soomaaliya aan laga maqlin. Soomaaliya inta badan waxa lagu asteeyaa ama la yiraahdaa waa meel magacyo badan loo bixiyo oo xun ah. Dhalinyaradeenana waa maqlaysaan oo waxa la yiraahdaa magacaas xun ay leeyihiin oo dadka laayaan oo caalamka iyo adduunka oo dhan yaa ka qeyliyay. shacabkooda ka qeyliyay, dadkooda ka qeyliyay. marka wax wanaagsan oo aad u fiican waayahan Soomaaliya laga ma sheegin. marka waxaan idin sheegay taariikhda gasheen xulka qaranka tihiin. laakiin anigana tiimkayga tihiin. tiim kale ma lihi xulkan qaranka awal raggaas tiimkayga ahaan jiray xulka qaranka maxamed Ismaaciil Cafiif iyo laakiin hadda idinka bedelay hadda macnaheedu waxay tahay hawshii aad qabateen iyo meesha kaalintaad ka gasheen waa waxay Soomaaliya runtii ku faani doonto waliba waqtigan adag lagu jiro haddii xaaladdu iska fiicnaan lahayd oo dalka dagaal sokay ka dhici lahayn hadda guushaas aad keenteen macna ma lahaateen laakiin guusha hadda aad keenteen waxay macno weyn u leedahay xaaladda adag aan ku jirno iyo magac xumada Soomaaliya ee adduunka ka leedahay Afrika ina kor u soo qaadaan oo astaantii qaranka aad muujisaan inay Soomaaliya soo noolaanayso oo idinkuna aad qayb ka tihiin ina Soomaaliya dib u soo noolaaneysaan marka aad iyo aad ku mahad celinaynaa aad iyo aad annaga waxay nala tahay waad guuleysteen intaas oo dal yaad ka soo guuleysateen idinkoo dalkiina burbursan yahay idinkoo dalkiina uu xaaladan adag ku jiro dawladdiinu iska daciif tahay oo aysan tabar badan lahayn oo hadda ay soo kabanayso yaa waxaad gaarteen meel aad iyo aad u sarreysa oo aad ka badiseen dawlado badan oo aan burbur ku dhicin dawlado badan oo 30 sano soo dhismaayay yaad ka hormarteen guushaas runtii aad gaarteen qayb weyn waxa ka ah Cabdiqani iyo xiriirka kubadda cagta oo runtii muddo dheer soo shaqeeyay iyadoo waliba dawlad la'aan ama dawlad jilicsan ama dawlad dib ku jirta ay ka dhex shaqeynayeen oo waliba dagaaladan iyo qarxayadan ku socdeen aad iyo aad u mahadsan yihiin sacrifice-ka ay soo galeen iyagana taariikhda qorays insha Allah hadda wixii ka dambeeya marka hadda wixii ka dambeeya dagaalkan waa ku wada jirnaa kulligeen insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo xaaladiina maalin yaan ula soconaynaa tababarkiina iyo ciyaartiina iyo noloshiina iyo waxbarashadiina iyo kulli waa la soconaynaa insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo bacdama aad astaan qarantihiin saddexda bilood soo socota waxaan isku diyaarinaynaa Augusto ciyaaraha 17 sano wax ka yar ee Afrika yaa isku diyaarinaysaan saddexda bilood soo socota naftigeena waxa nalaga rabaa dadaal aad iyo aad u weyn in la galo oo aan la isdhigan oo Afrika aan ka soo qaadno oo la yiraahdo Soomaaliya waa soo noolaatay waxaana soo nooleeyay dhalinyaro meesha dhalinyaro kale ee burburinayaan idinka ina soo nooleysaan Soomaaliya oo magac fiican iyo sharaf fiican iyo meesha Soomaaliya adduunka ay kaga jirtay aad dib ugu soo celisaan macnaheedu waxay tahay Ilaahay ka sokow waxay ku jirtaa gacantiina iyo dadaalkiina iyo shaqadiina iyo waxay ku jirtaa sida aad u shaqeysaan iyo ku jirtaa annagana wax alla wixii garab ah oo gacan leh oo dadaal ah oo aan ka geysan karno sidii aad number 1 aad u noqon lahayd Afrika waa idin kala shaqeynaa insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo waxaan rabaa inaan maxaan ku raahdaa Maxamed Ismaaciil Cafiif aan halkan idin kaga sheego way soo mareen meeshaad joogtaan weydiiya iyaga sidii ahaayeen markii ay u soo ciyaarayaan magac Soomaaliyeed iyagoo xul qaran ah dareenkooda weydiiya dareenkoodu wuxuu ahaa midaan caadi ahayn annaga naftigeena markaas dhalinyaraan ahayn waa ku faani jirnay bacdama ay ahaayeen maxaan ku raahdaa dad u taagan qarnimada Soomaaliyeed calankeena kor u qaadaya iyaga idin sheegay dareenkooda suu ahaa
markaad matalayso dal Soomaaliya la yiraahdo feelinka iyo dareenku caadi ma aha marka annaga naftigeena waana soo nooleyseen dib baa waxa noo soo xasuuseen waqtiyadii hore iyo sidaan u noolaan jirnay iyo sida aan ugu faani jirnay Soomaalinimada haddana idinkaan noo bilaabay hadda marka ogaada meesha aad Soomaaliya kaga jirtaan waa baal dahab ah waay meesha kaga jirtaan has dhiganina dadaalkiina laba jibaara saddex jibaara meeshaan waa meesha Soomaaliya ay dib ugu soo noqon lahayd sharafkii ay lahaan jirtay iyo magacii lahaan jirtay marka shaqadiina shan jibaara annagana insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo waa idinla shan jibaarina waa idinla toban jibaarina hadduu Ilaahay yiraahdo insha Allah hadalkayga waxaan kusoo gabagabeynayaa meelihii aad ku tababaran lahaydeen iyo qaabka aad u tababaran lahaydeen iyo siday ahaan lahayd 3 bilood soo socota waxaan rabaa wasiiraddu inay iga siiso iyo gudoomiyaha gobolka iyo gudoomiyaha xiriirka si joogto ah ay iga siiyaan warbixin hadba xaaladda meesha marayso insha Allah waana guuleysanaynaa Soomaa waa noo balan Soomaa inaad magacii iyo sharafka soo celisaan Soomaaliya guul yani anigana